الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعد تاني وحلقة إني صدحات دبا سعوتي تيراركا أي ريروه أي كتاغيهين قصدني هانكاي ورمي دونا فردغاني قصة لا ياب له قصدنا مركي كوباد ما أها مركي لبادنا ما أها وقصة كتبت نوغو تالا وقصة علماء أد كما غشين لكن والله مر والبؤن قصة مقلو وإي عصبتها حقيقة مر والبؤن قصة مقلو قلبي جاي وحفر بدن بإسك بدله محانو بحي قصة داسي جبر صبر بدن أو حكمة بدن إلهي أبال بوسية أنكو عليو جبر صبر بدن أو حكمة بدن إلهي أبال بدن بوسية جبر اللي هذا سليم جبر داس أيضا ayadoo ninkeedu u dhintay oo xaragoonaysa ayaa waxa la kulmay Abu Talha oo gaala shukaansigu ku bilaabay waxay tiri adigoo kale laguma diido laakiin gaal baa tahay dacwadii bay u bandhigtay hadaasa islaamto Abu Talha meherkaygu waa islaamka adiga meherka laga ma rabo ina islaamta bas meherki carabtu way meher badnaayeen waa dakhala sidaba ayuu u galay islaamkii qisada meeshan ooga socdaan raba inaad sheego waa qisa la yaab leh ciwaankeeduna waxa weeye gabadha sabarta ee xigmada badani ilaahay subhanahu wa ta'ala waa karaameeyaa maalmaha kamida wiil bay isu dhaleen wiilkii ayaa xanuunsaday suuqa ayuu aaday ama masaajidka ayuu aaday Abu Talhaan ka hadlayaaye intuu maqnaa ayuu dhintay ajaa'ib badana gabadha waxay tiriyaan loo sheegin ninkayga inuu ilmihi dhintay kadibna maxay samaysay maxaad u maleynaysaan maxaa aqligiina ku jira miyay ooyiday miyay qayliday gablamayay hoogayo baayay walwalayay imaaday miyay tiri dariski oo dhan qaraabadii oo dhan miyay isku soo kicisay maya waa qisa la yaab leh laakiin si degan u dhageyso si fiican u dhageyso reerku wuxuu ku taagan yahay waa sabar iyo xigmo reerku wuxuu ku taagan yahay waa sabarka iyo xikmada tiirarkii baan wali idin wada reer ku taagnaan lahaa sabarka iyo xikmada gabadhii cuntay karisay oo qof wiilkeedii oo meeyda ayaa cunta karinaysa qabso caawa fi taariikh ma soo marin ha cuntay karisay oo jikay gashay ha way isqurxisay allah oo ma intay musqusha gashay ayay sidii gabadh aroos galaysa isqurxisay nacam caawa qabso shariicadeena arinta laga helaa ma kugu daraa mid kale guriga bay nadaafad ugu dhaqaaqday gabadh qurux badan oo carfoon iyo guri qurux badan oo carfoon iyo cunto macaan Abu Talha waa yimid wiilkii halkan uu yaalay waa meed xikmada iyo sabarka waxa kaga daran oo kaba daran oo lala yaabo mar alla markuu soo galay wiilkii iiga waran waxay tiri hadda uu ugu dhaqdhaqaaq yar yahay انظر qiimaha ay gabadha muslimada leedahay waa gabadha doonaysa inay reer u dhisnaato laabudda waa inay sabar iyo xikmad leedahay sabar iyo dulqaad waa inay leedahay xikmad iyo xinka waa inay leedahay maxaa dhacay ma taqaan ayaa liqwa midina ma istaqisada ilaahi daraadii ba idin jeclaa ujeedadu inay waxyaagaan way waxaan doonayno reeraheenu inay noo dhismaan ma doonaysa gabadh sabar badan oo xikmad la inaad noqoto aqri siirada aqri taariikhda aan qisadii marka idin dhameystiro ka waran wiilkii hadda uu ugu dhaqaaqay yar gurigi waa carfoon yahay hay gabadhii way qurux badan tahay hay cuntada ku soo dhaweysay labadoodii baa la wada casheeyay ayde wad garan kartaa casho macaan bay samaysay kadibna gurigi baa la aaday qolkii chiefkii baa la aaday asagu wuxuu mooday wiilku inuu yar hurdo shanqadhu yaraynaya xiriir goboleed baa dhacay Allahu akbar waxaan suuraysan laahay anigu oo qisada mar walba on aqriya macaanaata oo dhadhanta hooyo gabadh muslimada oo ilmaheedii meed yahay sabarkeedu iyo xigmadeedu ay gaarsiisay inay aroos gasho oo cunto macaan kariso oo isqurxiso oo guriga nadiifiso wax la yaab la meedin sheega xigmada fiiriya mar alla markay xiriir goboleed uu dhacay bay tiri kaalay Abu Talha reer dariskeena hadan alaab ka soo qaadan lahayn ma u diidi lahayn haday naga soo doontaan soo siin lahayn maya waanu siin lahayn hadaba wiilkii yarka aha ammaanu nagu aha Allahu akbar wa kuwa gabdhaha aan doonayna reer inay dhisan karaan gabadha la doonayo inay reer dhisato waa sabarka iyo xikmada ha maxaa dhacay wuxuu waanu siinaynaa waxay tiri wiilkaagi ilaahay baa lahaa ilaah baa nasiiyay waana dhintay waagu markuu bari qabriga loo raadiyo Abu Talha nabigu u tagay calayhi salaam
nabiga markuu qisada u sheegay nabiga intuu qoslo wuxuu yidhi oo wiilkiinni oo xalay meeyda miyad aroos ahaydeen haa allahumma baarik lakuma fi laylatikuma ilaa habeenkii xalay ahaa idiin barakee maxaa dhacay gabadhii uur bay yeelatay xiriirkii gobasha habeenkii uur bay yeelatay sabarkeedii iyo xigmadeeda daraadi uur markay yeelatana wiil bay dhashay 9 wiil oo uu dhalay oo quraa'a oo quraanka yaqaana oo hal meel ku wada subcinaya ayaa indhaha la saaray maxaad ka fahamtay qisada maxay kula tahay qisadan qalbigaaga raad ma ku reebtay ma doonaysaa inaad ku dayato reerka usuusha lagu dhisayo iyo tiirarka ma garatay aad baan ku jeclahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh